district councilka ama dowlad wanaagga ama yani aan dhahay golo deegaan marka aan ka hadlayno marka waxaan isweydiinaynaa su'aalo dhowr ah oo ah waa maxay golo deegaan maxay nafci u leedahay deegaanka golaha dadka deegaanka intaas ayaan ka hadlaynaa ma dadka deegaanka degan ayay nafci u leedahay golo deegaan in la sameeyo mise golaha deegaanka naftirkooda ayay nafci u leedahay mise waxay nafci u leedahay deegaanka ee golaha la rabo in lagu sameeyo sidoo kale maxaan ka baranaynaa sidee loo xushaa maxay tahay caqabadooyinka hoos imaanayo maxay qabanayaan sidee loo doortaa intaasaan ka wada hadli doonaa haddii oo rabbi raali ka noqdo golo deegaan marka aan dhahayno marka deegaankaasi bulshada ku nool waxaan u qaybinaynaa 3 qayb qaybta koowaad waxaan leenahay waa qayb iyada wax xakunta qaybta labaadna waa qayb xakunka hoos timaado oo iyada la xukumo qaybta saddexaadna waxaan leenahay waa qayb la xisaabtamaysa oo bulshada labeentooda ah waxayna la xisaabtamayaan oo halbeeg ay saarayaan halbeeg xukuumeed ama halbeeg maamuleed ay saarayaan dadka ayaga wax xukumaya ayaga xisaabtamayaan deegaanka marka aan dhahayno golo deegaanna waxaan u qaybinaynaa 3 qaybood oo kala ah deegaan gole iyo dadka deegaan waxaan raahnaa ama waxaan leenahay waa meesha waa halka ay dadku ku nool yihiin deegaan ayaa la yiraahdaa environment ama deegaanku waa meesha ay dadka ay ku nool yihiin goluhuna waa dadkaasi dadkii hogaamin lahaa ama hogaanka u noqon lahaa dadkaasi deegaanka ku nool dadkii hogaanka u noqon lahaa ayaa golo la yiraahdaa sidoo kale dadkuna waa dadka ku nool deegaanka ay sidaas ayaan leenahay marka golo deegaan waxay gaari karaan 50 qofood 90 ilaa iyo 100 iyo dhowr waa hadba sida lagu soo xusho waxayna ka shaqeynayaan horumarka deegaankaasi sidee loo xushaa marka golo deegaan waxaan kaga hadlaynaa 2 qodob oo lagu xulan karo qofku waa in uu qofka awood u leeyahay basadatan fil ilmi wal jismi marka laga hadlaayo qaybtii yani waa hore hadda dadku waa inay yiraahdaan qodobka koowaad ee lagu xulanayo qofka golo deegaanka ka mid noqonayo waa inuu aqoon u leeyahay deegaanka wixii uu u baahan yahay wixii horumarin kara deegaanka iyo caqabadooyinka sida loo xalin lahaa qof aqoon u leh ayaa loo doortaa in golaha deegaanka uu ka mid noqdo qodobka labaad ee golo deegaan qof ka mid noqon kara lagu dooran karo waxaa ka mid ah in uu qofkaasi yahay qof aamin ah yani qof aamin ah wixii maanta loo dhiibo beri loogu imaanayo beri maanta marka xilka loo dhiibo beri marka xilka ka dagaayo in wixii loo dhiibay loogu imaado qofkaas ayaa isagana ah waxyaabaha lagu doorto marka la soo xulanayana golo deegaan sidee lagu soo xushaa golaha deegaanka marka la soo xulanayo waxaa lagu soo xushaa qaab yani dadka deegaanka ayaa soo xulanayo hormuudka dadkan hormuudkii ayaga u noqon lahaa ee ku hogaamin lahaa nidaamka maamul wanaagga saas ay soo xulanayaan odayaal iyo duqoow iyo dhalinyaro iyo habroow iyo maxaa dadka deegaanka oo iskaashada aan iraan ayaa soo xulanaya dadkaasi oo markaasi xilka u dhiibanaya maxay qabanayaan golo deegaan waxay u shaqeynayaan horta sida dawlad camal ay u shaqeynayaan sida dawladda qaabka ay u shaqeyso ama maamul sida u shaqeeyo ayay u shaqeynayaan waxaa la dooranayaa gudoomiyaha golaha deegaanka gudoomiye ku-xigeenka la dooranayaa xoghayihiyaa la dooranayaa waxaa imaanaya shaqaalo oo deegaankaasi isla mid ah oo la rabo in yani ay ka mid noqdaan agaasimiyaalkii golaha deegaanka waxay u shaqeynayaan agaasimiyaalkaasi waxaa imaanaya kii maaliyadda kii canshuuraha kii horumarka kii nooc walbaba qaabka ay dawlad u shaqeyso ayay u shaqeynayaan golo deegaanka waxay u shaqeynayaan marka qaab oo baarlamaan camal ay ahaanayaan agaasimiyaasha la xulan doono ama agaasimiyaasha markaasi gudoomiyaha magacaabi doono ama dadka deegaanka ay isku soo dhex magacaabi doonaanna waxay u shaqeyn doonaan sida wasiirada oo kale kadib waxa ay u aadi doonaan markay intaas la soo dhiso deegaankiina uu yeesho golo deegaan gudoomiyahoodii iyo xoghayahoodii iyo muxuu ahay agaasimiyaalkoodii oo isla hadaan kadib golaha ayaa la xisaabtamaya dawladda maxaa noo qabsoomay oo naga qaldamay maxaa noo qabsoomin oo noo ansaxmay yani maxaa noo ansax oo noo qabsoomay maxaa naga qaldamay oo ansax noo noqonay golahaasi ayaa la xisaabtamaya baarlamaankii markaa dawladda jirta ayuu la xisaabtamaya deegaankana waxa uu gaarayaa markaa deegaan horumaray ayuu sidaas ku noqonaa horta golo deegaan sidaas